Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan ka tacsiyeynayaa geeridii ku timid wiilkii dhalinyarada ahaa oo maantay sida khaldan askari dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan uu ugu dilay magaalada Muqdisho. Wiilkaas saakay aroortii ayuu soo irsaaqad doontay, waxaana bajaastaasi ka masruufay hooyadii, aabihii, xaaskiisa iyo ilmihiisa iyo walaalihii. Si qardaraa oo cad oo loo jeeda ayuu u dilay. Waxaana aaminsanahay in laynta dhalinyarada Soomaaliyeed ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ayadu raali ka tahay. Maxaa yeelay waxaa jira dhalinyaro badan oo horay loo laayay oo lagu xukumay dil toogasho ah. Kuwii dilay dil toogasho markay maxkamaddu ku xukuntay, waxaa xafiiska madaxweynaha federaalka la geeyay warqadihii lagu toogan lahaa nimanka dhagar qabayaasha ah oo laynaya dhalinyarada Soomaaliyeed ayagoo u gashanaya shaati dowladeed. Madaxweynaha waa ka diiday in uu saxiixo warqadaha si loo toogto ciidamada dadka laynaya, taasoo fududaysay in dhalinyarada maalin walba lagu laayo magaalada Muqdisho. Haddaba mudane madaxweyne, haddii aad adiga baasaboorkaaga u turtay, miyaadan u turaynin dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed oo maalin walba lagu laynaya magaalada Muqdisho? Waxaan u dulqaadanay in wadooyinka la xiro, waan sabarnay. Waxaan u dulqaadanay inaanan dalka ka bixin annagoo dhibaato kasta kula kulanna, waan sabarnay. Laakiin mudane madaxweyne, mudane ra'iisul wasaare, hadalkayga caawa buug qaata oo meel ku qora. Ma u dulqaadanayna bahdil intaan ka badan. Waxaan sheegayaa, cadaynayaa anoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka Banaadir inaanan u dulqaadan doonin inuu askari maalayacni nagu dilo, annaguna aan sacaboolay sii ahaano. Waa la iskaga daba tegayaa mukayfka iyo shaatiga dowladda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.